السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa Suldaan Media Pro bartaan ku leeyahay YouTube-ka. maanta waxaan joogaa magaalada Bremerhaven suuqa halkaas reedi ku qabto. ma arkaysan barmalaya Bremerhaven waa dekedda magaalada Bremen. waxaan doonayaa inaan meel u tagno. waxa jira magaalada Bremen waxay leedahay waxyaalo badan oo runtii caan ku ah. hadda yar kadib waan istaagi doonaa. waxaan idin rajeynayaa inaad barnaamijkan ka mid noqotaan. haddii aadan hore uga mid noqonahayn YouTube-keygana subscribe saar ku soo dhawow. waxaan ku leeyahay runtii ka mid noqo asxaabteyda ku xidhan YouTube-ka videoga share gareeya. haddayna ka mid noqonayn horena haddana igu soo biira. wixii intaa ka dambeeya meelba meesha ka quruxda badan magaalada Bremen baa kala bari doonaa. waxyaalo badan baad runtii ka faa'iidi doontaan ma garatay. videogan hadduu markaa adiga ku anfaco oo wax weeye aad ka hesho laagta la dhaafin taaganay albaabkii laga galiyay dhinaca badda inaa hadda aad arkaysan horena videoga inaan sameeyaan malaynaya meesha bujiska ahayd maraakiibta meesha taagnaayeen. halkan aan hadda maraya dadka loogu talagalay inay maraan oo meel waxa lagu aadaa inaad xagga hore badda iyo dhinacaas oo dhan isu dhawaataan. sad jeedaana halka waa badda qayb yar oo kamid ah. aduwa bad maaha laakiin waa meel yar oo dadku ayagu sameeyeen. haddaad fiiriso dhulka hoose wax yar bay dhulka u jirtaa sad arkaysan. dhulkii haddaad halkaa istaagtay yani adigu ilaa 6 mitir ma dhana. xagga hore laakiin yara meel yara weyna sad arkaysan. halkan dadkoo dhan baa mara waa meel loogu talagalay in dadku maraan. marka albaabka markaad ka soo gashaa saa idin jeeday albaabka markaad ka soo gasho halkaas soo maraysa waa qasab inaad halka soo martaa. waana meesha ay badduba ka bilaabato. halkan aad arkaysaan kamerada la iska bilaabaya moogta meel isku sheegayba. halka aad arkaysaan hadda insha Allah guriga ma arkaysa weyn aad u jeedaan waa krimi allaanka idin sheegay oo guriga kelimo cilmilooyinka adduunka oo dhan loogu talagalay. waana guriga aan rabo inaan barnaamijka qaybtiisa ugu muhiimsan kasoo duubo. daweelaha dhacaya mikrofonkana sida waska codkiisu waska bila quality. marka halkan hadda taaganay waa meesha mataqaana gacanka ay ugu talagaleen inay soo leexiyaan nimankan reer Bremen ama Bremerhaven. marka ila socda gudaha ii soo raaca ina marshaan idin leeyahay markaa. meeshan waxa weeyaan gudaheeda waxyaalo badan oo cajiib ah ayaad ka arki doontaan. soo raaca mar walba wax badan oo aad runtii aad ula cajiibto ayaad arki doontaan. taasana idin ballan qaaday. hadda waxa soo galay inay qaybtii Afrikaanka taaban malaynaya. si arkaysaan sawir bay soo dhigeen halkan. laba qof oo waxa weeyaan inay hadda halkaas waxa malaynaya xaabo inay tahay. waxaas ay xaabo tahay oo adigu qaawan yahay u yaraa strong. gudahan markaas u soconayna ila socda. dadka ka walaayado abo debaka hadda wada jeedaniyo afta waxa weeyaan mission baa joognaa. soo gabadhi jir mission baa joognaa. meesha hayta joognaa waxa weeyaan Afrika. macnaheedu waxa weeyaan Afrika ayuu baa dhuxul laga shaqeeyaa badana. waxa u jeedaan asxaabay ma dhuxul caadi ah laakiin wallahi waa dhagaxaan. haddana meel kale soo wada saarto waxan waa maxay waxan noqon kartaa. sida ay sheegayeen halkan waxaan abeesa ku jirta laakiin waxa abeesa ma arkay ma xaga sare ka soo dhacaysa tano ma garanay abeesa ku jirta kuleen laakiin anu idin waxa abeesa ma jeedaa.
ya sawirkeeda abeesa ku dhagan laakiin waxaan arkaa wax soo dacartii waddankeena daawadan garanaysaan waayo dacartii geedkan ma garanay dee kulle miraamir iyo axmi laga helayaa talo maxaa jilbis baa la dhahaa maska waa maska Soomaaliya jooga 15 daqiiqo ugu badnaan buu qofku noolaa waa maska ugu waabayada badan marka laga yimaado kan yaree dhuudhuuban ee la yidhaahdo magaciisa hadda iga maqan yahay dagaal baan kasoo sheegi doonaa laakiin maskani maska عادي halkan kaari yar baa taagtinayaa والله waxa biyo caadiya sheekada cajiibka ma taqaanaa halkan waxa ku yaala inala oo nimanka reebiga ayaa igu yeedha maanta halkan daawo waxa ku yaala ninka lama dhaaf karaan malaynayaa laakiin bahalka inaad garanaysaan baan malaynayaa halkaas waa ceel ma garatay ceelkaas marka waxa malaynayaa bahashan laga soo dalacaya suuqa soo dalacaya bahashaasa laga dalacaya yaro sugaan waxaan ma garanaysaa adiga xagga rimiga waxa igu dhaamay halkan wax ka keenaysa magiciida ay gooyay moogto waa dawlis wadaantii waa soo baxaysa ninkii garanaya waa madow kulle meesha lama arkayo leerkana lama ogola saan maranayo laakiin meeshu dheeraaniyo mashada ku dhex dhaco waxa soo qodan karo dadkan waa shaadin wallaahi ya ku dul qaadana halka waxa inooga muuqday imika waa wadaan ama dawlis kulba sidaad u garanayso wataa hoos bay u socotaa imika kamarada ku haadi bash kamarada ku haadi wadaantaas Soomaalida suugaanteeda waxyaabo badan oo kamid ah ku jira waxa kamid ah ninka ceelka walwal buu ku waraabiyay geel wadaan hoos ka daloosha yay walaalayihiin ya ninka geela u heesayna wakiil ahaa waxaan gabadh iyo guur isaga nacay wadaamaha gore yaadan gabin oo yaadan gaadhay haddana waxaan isku daynaa aqal Soomaali gal hadii lama gali karo walahi aqal Soomaali caadi waxaan aqal Soomaali weeyaan waa aqal Soomaali waxaan yara casi karay laakiin de inaad garanaysaan halka weerad badan aan jirin laakiin halka aw baalka xagga rimiga lagu radhamaa kirgas waxaasina waa harag ma taqaana ya sheeko dheer walaa waa harag gide kan waa meesha sariirtaa laakiin adigu waa iska yaraa baashi bay ka dhex qaadeen ay gashanayeen dadkan Afrikaantahay qofku waa intaa hoosunba wax lagu xidhaa xagga sare xami jireen seeftii wata halka ku jirta iyaduna waa macnaha hadhowtu markaad guriga ka baxayso waa inaad hore usoo qaadataa kan biyaha lagu waad garanaysaan oo waa dhaqankiisite wax ka soo gaadhaba duulduulkii ka soo gaadhay waa laga yaabaa inuu dee qarbid baa la yidhaha Soomaaliga laakiin inagu dee Afrikaanka dee baalo qarbidka inagu noocaas uma samaysano waxaan ka sii shisheeyaa wakaa qarbidkeeda wakaa qarbidka Soomaaliga waa kan wakaa ninkii garanaya ninkaan garanayna isaga wakaa laab caagad biyo ka cabdo iska socdo ninka wallaahi bilaa wareedada ku dhoolad arbashiga saaraan ku looda ilaa anada waa qarxi rabaa wallaahi bilaa adigu ka xamasree
ugu dambeyntii ka soo dhex baxnay waxaa waya ma garatay ya kuleylkii adduunka dhiidkii adduunka iga baxay hadda waxaan malaynayaa qaybtii kuleyd Afrika waan ka soo dhex baxnay eeg bal nimcadan daa waxaasoo dhan baynu haysanay ayaan fahmi weynay laakiin meesha masagaali baa ku jirtaa aan suuntayda kusoo qabtay suun ma laha xaraabo waryaa burco wax meeshaan soo galay ya abal meel waxaa soo dhex galay mataqaanaa cabsi walaa ku qabadee gaar waxa ka qabanaysaa labadiis halka joogna meel waxaa soo galay mataqaanaa filimka dadka u shidmaya horo filimkaas waa inta yarana sharaxaya Soomaaliya qofkii ku soo barbaaray xilliga roobku doo barwaaqada ay tahay biyuhu ay habeenkii buuxiyaan meelaha ku dhow ee godadka ee raahu isu jawaabo dhiidha halkan toos baad uga maqlaysaa waxaad joogtaa meel intuu roob helay biyuhu ay dhinac walba isaga yimaadeen waa gudcur xidiga mooyaane wax kale lama arko mobilkayga leerkiisa kala aan isticmaalaynaa wakaa laakiin haddaad mobilka damisid qofkii halkaa tegey ama beri soo maray wuu garanayaa meesha la dhex maraya iyo shaqada iyo cabsi baa kuu shidmaysa bal eeg anigu marka hadda leerkahay meeshaas u madooday halkan luuq baa la sii marayaa luuqan la sii maraya markasa meel kale laga sii dhex baxaya wadadii buu hoos baa la sii dhaadhacay bro ilaa xuma arkaysaan barmale meel madow alla iga ilaali abti meesha ugu dhex baxnaa bro abtiga dhex saar walaa meeshaan ka soo galay halkeed bro abti meeshaan ka soo galay halkeed abti hay waxaad ii sheegtaa dawaa maanta dhan wareegaynaa wale hayaay bro abti waxa meesha cabsidii waliga horeynaa odaygii burca iska horreysiyey leydh buu haystaa moogtay asle inta wax soo boodaan isaga xitaa la kacaan waxaanu ka dhammaan lahanay jiiro ina luuq yaraan ka soo galay halku ah hee ilaa waktigiiba odaygu uga horreeya ma arkaysaa albaabkii hellay hadda waar ugu dambeyntii albaabkii hellay ma garan arkasoo dhex baxnaynaa arkasoo dhex baxnay haddana waxaa ku jira gabagabadii barnaamijka halkan aad joogtaan waa aad iga daawanaysaa Suldaan Media Pro waxaan malaynayaa Soomaaliya inaad wax badan iga faa'iideen meesha gudaheeda runtii ku raaxaysanaysaan haddaba maxay idin talaa 2 wiig oo fasaxa la galayaa 2 wiig oo fasaxa caruurtiina keensada hoteeladu way jabayn barnaamij baan idin soo diyaarin doonaa macal caruuraha iyo hoteelada iyo waxa dhan lagama sheekeyn karo haddaad iga mid ahayn haddaba waxaad subscribe u saar ka mid noqo videogan ii share gareeya waxaan idin rajaynayaa inaad barnaamijkan aad ka hesheen meeshaan idin soo diyaariyey wax badan aad iga faa'iideen aad baad mahadsantiin waxaan idinkaga tegayaa mar walba waan idin jecelahay